saaxiibayaal waxaan ku guda jiraa safar aan ku soo maraya adduunka oo dhan weliba si lacag la'aan ah xalqadanna waxaan ku suganahay qaaradda South America ilaa imkana waxaan soo maray qaaradaha kala ah Afrika, Yurub, Asia iyo sidoo kale Australia iyo ugu dambeyn qaaradii ugu dambeysay Antarctica oo 8 cisho ku soo qaatay anigoo halka ku soo arkay xayawaanka penguinka saaxiibana ku soo samaystay balse muuqaalkan waxaan dib ugu noqonayaa magaaladii aan ka soo galay markii hore ee Ushuaia ee dalka Argentina taasoo ku taala qaaradda South America waxaan haystaa 6 cisho kaliya si aan u dhameystiro safarkayga adduunka oo dhan ku soo marayo saaxiibayaal aad ayaan isku ilaalin doonaa waayo hal qalad oo aynu sameynay dhammaanba ku ciyaari safarkeena sida darteed aad baynu taxadiri doonaa muuqaalkan 6 cishan imika ayaynu bilaabayaan saaxiibayaal markana dib ayaan ugu soo noqonay dhulkii caadiga ahaa saaxiibayaal inaynu halkan ku soo noqonana aad ayay la yaab u lahayd saaxiibayaal imikana saaxiibayaal waxyaabo badan oo ay tahay inaynu qabanno ayaynu yaala waxaynu u baahanay inaynu ku socdaalno oo aynu soo dhex marno dhammaanba qaaradda South America vamos ina mariyo saaxiibayaal haddaba waxa ugu horreeya in isku dayay saaxiibayaal inaan sameeyo waxay ahayd inaan cunto si bilaash ku helo nasiib wanaagigana luqadda Isbaanishka si fiican ayaan ugu hadlayaa sida darteedna wax walba way ii fududaan doonaan inta aynu halkan Argentina ku sugannahay ¿Qué quieres comprar? Sí, ¿Qué quieres comprar? sí. sida darksin saaxiibayaal Isbaanishka aan aqaani wuu sii daayay laakiin markaan dukaanka ka baxay dukaanka kala galay mar labaad Isbaanishka wuxuu noqday Isbaanish aad u wanaagsan Gratis, por favor. wax chocolate free mu heli karaa cajiib weeye aad baad mahadsan tahay haddaba kadib markaan soo helay quraacdan fiican ee la soo siiyay hawsha kale ay taala waa inaan meeshan iskaga baxo laakiin haddaba saaxiibayaal xeerka ugu adag ee aan raacaya intaan qaaradan joogo ayaa ah inay qasab tahay qaaradda markaan ka baxayo inaan ka baxo wadankii aan ka soo galay wadan aan ahayn taasoo la micnaa inay qasab tahay inaan qaarad kasta ka booqdo laba wadan balse nasiib wanaagayga qorshe fiican ayaan niyadda ku hayay sida aan filaya halkan waa halkaan kula kulmi doono saaxiibkayga fiicnaa Yaasiin kaasoo aynu isku soo baranay markabka Antarctica aynu raacnay ee sidoo kalena inaga soo bixiyay tikidhka aynu halkaa kaga soo baxnay Hi brother, everything okay? Good to see you, man. kani waa Yaasiin waxaan kula kulmay markabka aan raacay Antarctica intii aanu halkaa ku sugnayna sharad ayaan wada galnay kaasoo aan kaga guuleystay oo ahaa in biyahan qabow la dhex galo sida darteedna Yaasiin wuxuu iga bixiyay tigidh aan kaga imanayo dalka Argentina oo aan ku tagayo Brazil Oh my gosh, so that means we're going to Brazil. flightkeena wuxuu bixi doonaa maalin kadib inagoo ka raaci doona airportka El Calafate halkaasoo aynu sii socon doono 12 saacadood si aynu u gaadhno nasiib wanaagigana Yaasiin laftarkiisa ayaaba gaadhi karaysanayay oo halkaa u socday aniguna waan sii raacay My brother. There we go, but focus on the road because we do not want to crash. Oh, there we go. Yeah, oh, that's crazy. Yeah, that's the last handshake we do. Oh, geez, and that's Lidge. Good driving, man. Good driving. inta kadibna saaxiibayaal waanu dhaqaaqnay Yaasiin gaadhiga si fiican ayuu inta wixii ka dambeeyay u sii waday saacada markaan soo soconayna masaafo fiican ayaanu soo jarnay weli wuu naga fog yahay airportkii laakiin markan waxaanu soconaa inaanu tagno magaalada inoogu dhow ee Rio Galagos lagu magacaabo taasoo miles inoo jirta magaaladana waxaan rajaynayaa inaan ka helo qof aan si free kula joogo masaafada aanu soo soconay wax badan ayay ahayd haddaba laakiin ninkan Yaasiin waxaan kuma cusba waayo 200 cisho ugu dambeeyay ninkani gaadhi ayuu ku soo socday isagoon marnaba diyaarad raacin haddaba saaxiibayaal annagoo iska socono dhul cid la marayna waxaan istaajiyay ninkan kale kaasoo rabay inaanu sii qaadno Hola, ¿a dónde va? Where are you going? Rio Galagos. I am going just to Cerro Sombrero. maadaama aanu sii maraynay magaalada uu doonayay annaga laftarkayga maadaama lana caawiyey marar badan waxaan go'aansanay inaanu ninkan u naxariisano oonu sii qaadno sidaas ayaanaan ku qaadnay ninka laftarkiisu haddaba waxa uu ka yimid Antarctica isagoo qaab free weliba halkaa ku tegay waxaanu samaynayaa waxaan anigu samaynayo kale waxaanu ninkan noo sheegay in South America qaaradan ku qaatay 4 ilaa 5 sano isagoon wax lacag marnaba ka bixin annagoo halkaa ka ogaanayba in ninkan yahay nin annaga naga daran oo aanay marnaba waxba ka bixin weliba waday 5 sano Oh my gosh, we just met the final boss. I just want to show it's possible, It's possible. to travel all continents with very low budget. I love that, Roman. I absolutely love that. weliba ninkani sidoo kalena wuxuu noo sheegay inuu Greenland tegay isagoo aan marnaba diyaarad raacin oo doon buu raacay taasoo la micno ah in labadoodaba challenge-gooda uu ninkan hal mar wada sameynayay Yaasiin challenge-giisu waxa uu ahaa inaanu marnaba diyaarad raacin meesha uu doonayana sidaa ku tago halka anigana ay ahayd inaanay marnaba waxba iga bixin lacagi labadaba ninkan wuu sameeyey nin cajiiba weeye haddaba saaxiibayaal dhanka kale ninkan wuxuu igu dhiirigeliyey in wax walba aad rabto adduunka aad samayn karto
sidaa darteedana waxaan go'aansaday inaan sii maro xaruntan penguinka lagu hayo taasoo aan in badan raadinayay inaan tago intaan la xidhin halkaana waxaan rabaa inaan kusoo dhammaystiro challenge kale kaasoo inaan xayawaan ka soo qaado sawir xaruntan haddaba waxaa laga helaa 40 nooc oo ka mid ah xayawaanka penguinka lagu magacaabo waana xarunta ugu weyn ee ku taala South America ee penguinada lagu hayo daba xarunta waxaa la xidhayaa saacad kadib masaafada ay noo jirtana 50 daqiiqo ayaan imika sii soconaynaa dhanka kalena askartan xuduudda joogta ayaaba nagu adkeeyay waqtigii nagu yareeyay We are now in Chile. Let's go! Come on. Yep, yep, yep. Yip, yip, yip. Are we going to make it, Roman? To be honest, I think not. saacad saaxiib la sida arkaysaan waa 4:59 10 mirir baa ka hadhay waqtigii la xidhayay waxaan rajaynayaa inaan laga xidhin Oh, it's closed. Uno minuto, penguin. Big. King penguin. Devastated. No más. Por favor. Por favor. saaxiib yaal wad aragtaan waa lay diiday oo waqtigii baa laga xidhay laakiin qorshe kale oo plan B aan haystaa wadaroontan inaan kiciyo Oh my days. gosh. Oh my gosh. Oh, that's incredible. Bro, there's a bus. saaxiib yaal haddaba sidan inaan samayno may ahayn laakiin booliisku waa inaan iska ilaalinaa hareeraha iska eegnaa This might have been the biggest heist of all time. This is crazy heist. These are baby ones, right? They are, they have different feathers. They are quite more brown. You just know everything. You know absolutely everything. I can't believe we're getting this right now. We got king penguins, Andre! penguinkan haddaba king penguins la yidhaahdo waa nooca labaad ee ugu weyn ee penguinka adduunka oo dhan waxaana ka weynuun penguinka emperorka loo yaqaano penguinada in meesha lagu soo xareeyana waa horumar cusub ay sameynayaan South America iyadoo xiradii ugu horreysay lagu haynayo la sameeyay 2010kii dalka Chile laga sameeyay inkastoo ay naga fogaayeen penguinadani haddana waxaanu arkaynay baalashooda brownka iyo madowga iskugu jira kuwaasoo aad iskugu dhawaa si ay isku diiriyaan midba midka kalena uu ilaalinayay waxyaabaha soo weeraray ugaadhsanayeen ay ka ilaalinayeen bal u fiirsada saaxiibayaal aad ayay u qurux badan yihiin bilaaadankuna penguinadan waa inay wax ka bartaan sida ay isku ilaalinayaan oo iskugu dhex jiraan saaxiibayaal sawiradan penguinka la galanay waa laynoo diiday laakiin wax ka fiican baynu helnayba taasoo aynaynu ka duubnay fiideo dhanodroona haddaba saaxiibayaal annagoo iska sii socono sii tegaynaa yaasiin wuxuu markii la arkay gaadhi nagu soo cararaya Oh my god, there's a car. There's a They car. are driving away. Maybe we should just leave. Let's get it. Yeah, we gotta go. Oh my gosh! we gotta go, guys. Oh my gosh! Oh my gosh! They're coming quick! If they're actually following us, then this is crazy. Oh my gosh, they are going the same way. Oh my gosh, we're getting followed! Oh my gosh, are they close? They're failed. They bailed! Hey, we got out! Come on! We did it! yaa saaxiibayaal waynu ka soo baxsanay gaadhigan waynu ka soo baxsanay saaxiibayaal sidaasaan xor ku nahay markan cidina nama soo eriyanayso laakiin saaxiibayaal bal halkaa eega sawir baan ka qaadanayaa meeshan saaxiibayaal umaanu soo qastin waanu iska marinay laakiin xayawaanadan baaba nagu soo beegmay xayawaankan guanacos baa lagu magacaaba waan xayawaan u dhashay qaaradan South America ugu dambayna sidaas waxaan ku dhammaystiri doonaa challenge-kayga ahaa inaan sawir ka qaado xayawaan u dhashay qaaradan South America But it's just a very mysterious story. He's a traveller who just so happens to be doing what both of us have done. Like, we could just be going crazy right now. Oh, imagine. ugu dambayna waxaanu sidaa ku soo gaadhnay meeshii uu ku degayay ninkan Rome lagu magacaabo sidaasaanan ku macasalaaminay Good luck on your mission. Thank you so much. Good luck on yours, but I mean, yours has obviously been going on for a very, very long time. wada dhiirigelisay saaxiib safarkaagan in badan baad waday aad baad mahadsantahay Thank you also. Take care of yourself. Goodbye, brother. haddaba saaxiibayaal markii uu naga degay ninkii waddada nagu hagayay waxaan ku dadaalnay inaanu si fiican u raacno waddadiina geynaysay magaalada aan u soconay Rio Galagos annagoona rabnay halkaa inaan waqtiga saxda ku gaadhno gaadhigana si fiican ayaanu sii wadnay ugu dambaynna halkan ayaanu soo gaadhnay saaxiibayaal doon baan arkaa imanka waana nimid meeshii aan rabnay Plot twist. Mi carro no funciona. gaadhiga ayaa markan naga yara xumaaday laakiin waa lanoo hagaajiyey Muchas gracias, hermano. sidaa darteedna waxaan go'aansanay inaan caawa degno oonu joogno magaalada Rio Galagos laakiin intaanaan helin meel aan seexano waa inaan helnaa waxaan cunno laakiin sidaad la socotaan wax walba waa inaan free ku helaa Hola, uno gratis pizza. No. Por favor. haddaba inkastoo saaxiibayaal aan isku dayay wax walba aan awooday waan xataa dadka Instagram-kayga tusay Instagram. Es el Instagram de Drake. qof cunto friye siiya marnaba maan helin intaa kadib markaan meel walba galay oo isku dayay inaan cunto friye soo helo keliya waxaa yaarsan hal option Enjoy.
on my behalf. Thank you, thank you. Really appreciate you giving me this single slice of pizza. markan yaasiin inta yar biisida ayuu siiyey inkastoo intii weyneed la hadhay maadaama maanta oo dhanna gaadhiga uu nagu soo waday cuntadii waxba kamay soo hadhin laakiin ninkan kale meesha fadhiya ayaan ka dalbaday inuu biisidiisa wax iga siiyo. Amigo, alguna pizza de sobra? De sobra. Ami? Oh, amigo. Mi amigo tienes zero dinero. Sí. Muchas gracias. haddaba saaxiib yaal inkastoo aan helay cunto aan cuno caawa laakiin weli waxaa naga maqan meel aanu seexanno waxaan online-ka ka helnay hodheel yaro noo dhow kaasoo aynu rajaynayno haddii aan yaro barino in lanoo ogolaado oonu qaab firiya ku degno. Nosotros son estudiantes y no tengo mucho dinero. Si ahora en efectivo tenemos un 10% de descuento. Es el único descuento que le puedo ofrecer. Okay, no tengo efectivo. Es su cumpleaños. No, no tengo descuento. laakiin markaan isku daynay arrintan noomay shaqayn yaasiin ayaana ku qasbanaaday inuu bixiyo lacagtaan hodheelka caawa ku seexanayno sidaan gudaha ayaanu ku galnay oon ku seexanay hodheelkii laakiin sidoo kale weli waxaa noo hadhay safar aanu sii wadayno oo aanu gaadhiga sii raaci doono markanna waa subax kale 5 cisho ayaa imika inooga hadhay safarkeenna anigii saaxiibka yaasiinna sidaas ayaanu ku dhaqaaqnay dhanka airportka aanu ka duulaynay oo 4 saacadood loo sii soconayo falaydkaan meesha u tegayna 5 saacadood kadib ayuu bixi doonaa intaanu dhexda sii soconay saaxiibyaal haddaba waddada ayaanu iskaga sii joogsanay si aan u daawanno dhulka aan marayno halkaanu ku yar sheekaysano. So I wanted to ask you, Yassine, why did you want to go to this area of the world so much? So I live in an area in Canada that's very mountainous, and so I kind of look out for places that have mountain areas that are hikeable. So this is something that I've been looking forward to for a very long time. And how long are you going to be staying in this place? I'd say minimum 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks there. saaxiibka yaasiinna waxa uu ii sheegay ilaa 3 wiig oo kale inay u hadheen oo safaradana ku jiri doono welina waqti ayaa noo harsanaa oonu sii wada qaadan doonaa ilaa intaynu ka gaadhano airportkii haddaba intaynu dhexda sii soconno waxaan rabaa inaan sii dhammaystiro challenge kale halkaasoo aan raba inaan soo eego meesha loo yaqaano Perito Moreno ee baraf ku fadhiyo aniga weliba raba inaan qaab friya ku soo eego hadalkana u wanaajin doono dadka meesha maamulaya si ay si friya ugu ogolaadaan. Any chance I can see this glacier for gratis? Mira. No. balse saaxiib yaal sidaad arkayseen sidaan rabay imay noqon balse maan quusan waxaan isku dayay sidoo kale inaan dadka meesha tegaya ee iyagoo lacagta bixiyaan raaco waqtigii diyaaradayda uu soo dhowaanayay dadka meesha joogana weli qofnay muu caawin balse ugu dambeyn waxaanu helnay ninkan dalxiisa ee Irishka. Hi guys, are you guys from Ireland? kadibna challenge-gayga ayaanu sharaxay waxaana weydiiyey inaan raaci karo oon meesha la soo eegi karo ugu dambayna ninkaas ayaa inoo ogolaaday oo inaga bixiyay lacagta aynu meesha ku tegaynay. You serious? Yeah, it's fine, yeah. Thank you so much. Shout out Ireland, man. Played like 2 hours, so if we didn't go right now. Yeah, it would have been right. Oh my gosh, you guys are the best. You made it work. Dude, that was a close call. Thank you very much, guys. No Thank worries. you, honestly. Enjoy. Really appreciate it. Thank you so much. saaxiib yaal sidaad arkayseen iminka keliya 5 daqiiqo aynu dadka weydiinaynay aynan garanayn inayna caawiyaan waxaanu sidaa ku helnay tigidhkan aynu ku gelayna meesha mar kasta dadka waad ku kalsoonaan kartaa saaxiib yaal laga yaaba markaad isku daydo dhowr jeer mar kasta maaha ugu dambeyn waad helaysaa qof ku caawiya haddaba saaxiib yaal iminka waxaynu ku sugannahay meeshii barafka ama glacier-kii uu fadhiyey saaxiib yaal haddaba meeshan barafku keliya maaha meel baraf fadhiyo waa meesha ugu weyn ee biyuhu ku keydsan yihiin glacier-kan Perito Moreno lagu magacaabo waa mid ka mid ah glacier-rada ugu waaweyn ama meelaha barafku fadhiya ee ugu waaweyn maalin walbana 2 mitir ayuu sii bataa oo kor u sii kacaa haddaba saaxiib yaal markan waxaa soo dhawaaday waqtigii flight-keega flight-kan waxaa iga bixiyay yaasiin sidaad hore ula socotaan haddii uu iga tago flight-kaasina qof kale oo iga bixiya ma helayo sidaa darteed waa inaan degdegaa gaadhigana waxaan u sii wadnay si waaliya. We can get there, Yassine. I'm about to drive like a madman. I don't know if we're gonna get there. I hope so though. inkastoo aan si fiican gaadhiga u wadnay haddana waqti kale ayaa noo harsanaa oo aanu ku gaadhinay airportkan Alcalifate lagu magacaabo keliya waxaynu hadhay marka saaxiib yaal 4 daqiiqo si aynu halkaa u tagno saaxiibka yaasiin halkaas ayaan ku kala hadhnay. Honestly, brother, absolute pleasure. Yeah, we definitely have to link up again soon. I Yeah. appreciate you guys, man. waxaan idinka codsanayaa saaxiib yaal inaad yaasiin kasoo follow garaysaan Instagram-kiisa iyo sidoo kaleba TikTok-kiisa muuqaalo travel aad wanaagsan ayuu sameeyaa aad baad mahadsantahay saaxiib aad baad mahadsantahay inkastoo aan degdegayo. Oh, this is so sad. saaxiib yaal wax badan ayaan rabay inaan ku idhaahdo yaasiin laakiin waqtiga ayaa igu degdegaya waayo yaasiin aad ayuu i caawiyey intii aan safarkan kusoo jiray. He got us a whole flight to Rio. That's the biggest thing. George, why have you stopped running? I am running.
saaxiib yaal ugu dambeyn orodka aanu cararnay uu nacaawiyey diyaaradiina waanu ka gaadhnay oo flightki sidaas ayaan ku kornay saaxiib yaal haddaba intaa kadib magaalooyinkan aan u socdo ciidigaga horeysa ma jirto sidaa darteed applicationkan ayaan isticmaalay aad ka raadinayso qof kugu soo dhaweeyay magaalada oo si free ku caawinaya dadkana waa dadka magaalada degan kuwaasoo dadka dalxiisayaasha si bilaash u caawiya guryahoodana u dejiya applicationkan haddaba kadib markaan xoogay raadinayay ugu dambeyn waxa ay soo jawaabay ninkan Lucas lagu magacaabo kaasoo magaalada Rio de Janeiro degan waxaan u sheegay inaan iman karo meeshii seexan karo markaan Rio de Janeiro imaado saaxiib yaal sidaad arkayseen daqiiqadii ugu dambeeyay flightka diyaaradda oo sii koraya ayaan helay qofkan 10 daqiiqo ka harsanaa sidaa darteed ugu dambeyn nimka waxa igaga sii horeeyay magaalada aan u socdo qof aan ku hoydo balse saaxiib yaal markaan diyaaradda raacnay ee magaaladii Rio de Janeiro aan degnay inkastoo aan helay qof aan caaw ku seexday laakiin waxay igu adkaatay baa sida aan ku gaari lahaa meesha uu degan yahay ama gaadhi sii qaado meesha ay geeya No tengo ni idea. No. Nothing. This is 10 minutes from here. Is it okay for us to join you? We are going to stay here. Oh, you're staying in the airport? Yeah. Oh, okay. Good trip. Thank you, my friend. saaxiib yaal sidaad arkaysaan way igu adkaatay sidaa darteed waan iskaga baxay airportka saaxiib yaal maan doonayn inaan wadooyinka khatartaasi lugeeyo inkastoo meeshu ayna wax badan ii jirin oo 10 miro kaliya ii jirto sidaa darteed waxaan go'aansaday in wadooyinka weyn aan tago si aan qof isii qaado uga raadiyo saaxiib yaal markan sideen arkayna taxi ayaa istaagay laakiin sidaan filayay taxigan waxa uu moodayay inaan lacag siinayo raacayo sidaa darteed Google Translate ayaan adeegsaday maadaama luqadan aanan garanayn si aan uga dalbado inuu isii qaado Olá, você se importaria de me dar uma carona de 10 minutos de graça, por favor? Huh? See? Oh my gosh, this man. He said yes, yeah. Oh my gosh, this man. saaxiib taxigan baa noo istaagay sidaa darkiisaan u ogolaaday What is your name? Man City goalkeeper. saaxiib yaal sidaan arkayno golwadii Manchester City Ederson baa markana caawiyay ninkan magaciisu waa Ederson isaga daraadiina waxaanu sidaa ku tagnay ninkiina martageliyay caawaan la seexanaynay Pleasure to meet you, my friend. We were. Lucas sida tahay xaaladda ka waran gaari baaba wadada naga soo qaaday Spanish or Portuguese. Oh, you have good English. I'm going to USA for 6 months in this year to learn English. You speak English. I try to speak Portuguese. sidana saaxiib yaal waxaan ku heshiinay maadaama ninkan Ingiriisigu ku adag yahay in isaguna Ingiriisigu ku hadli doono aniguna aan Portugiis ku dayay inaan ku hadlo sidaan aan wax u kala baranayno gurigiisa ayaan sidaan ugu geliyay saaxiib yaal Brazil ayaan ku suganahay sidaa darteedna saaxiib yaal aniga iyo saaxiibkaygan kameramaanka ee George waxaan isku daynay inaan nasano maadaama maalin kale naga sii horeyso saaxiib yaal subaxii markaan soo toosanay ninkan George waxa uu na siiyay quraacda caadiga ee reer Brazil sidoo kalena waxa uu noo kaxeeyay meel kale oo kubadda lagu ciyaarayo halkaas oo aanan filimba in dadka jooga ay aqoonsan doonaan Hola. Documentario? Okay. Documentario. You know me? You know me, yeah? You went in I don't know, the most racist city. Yeah, that's me. That's me. Bro, what you doing here? I'm doing a documentary going to every continent in the world. You play soccer, Wembley, right? Yes, I play football at Wembley. What's your name, brother? Mateus. Okay. Very nice to meet you, man. saaxiib yaal NDL caalamka oo dhan baa laga yaqaanaa mana filin in garoonka yar ciyaal xaafadeedka dadka jooga ay aqoonsan doonaan inaan ku soo ciyaaray Wembley saaxiib yaal ilaa imka haddii aanad weli muuqaalka daba like saarin aan ku yara xasuusina saaxiib like-ta noo saar What you doing here? saaxiib halkan waxaan ka qabanayaa waxaan ku socdaalayaa adduunka oo dhan aniga wax lacagaan iga baxayn No money. Look. I know. I tell you. They think I'm capping. saaxiib yaal sida aan arkaynay lacag la'aantii ay ku qosleenba igamanay rumaysan in qaaradoo dhan lacag la'aan ku soo maray balse sida ay sheegeen ninkan iyaga ka mid ah wuxuu boos ka ahaan jiray uu haysan jiray mid ka mid ah xaafadaha isku rarantaa dhulkan oo dhan si fiican ayuu kala yaqaanaa ama Brazilian favela waxa loo yaqaano meelaha isku rarantaa saaxiib yaal ninkan hadaba ii gartay Matias lagu magacaabo inkastoo aan tusay xirfadda aan u leeyahay kubadda cagta weliba aan tusay 7 gool ka dhaliyay Wembley Stadium This is me. 1 goal. 2 goals.
3 goals. 4 goals. 5 goals header. You see that? haddana weli ma aaminsan xirfadayda kubadda cagta waxaan u sheegayaa inaan golwada lacag siiyey sidaa darteed iminka ayaan la ciyaari doonaa saaxiibayaal Matthias aniga adigu sheegtay Soomaa inaan golwada lacag siiyey imikaad arki doontaa haddaba sidaan kaaga dhaliyo 5 gool Oh, 3 tries, yeah? Right, yeah. That's 1. Yeah, you guys you like that, yeah? See how I do it in Brazil? That's 2. Ah, you like that, yeah? Here we go. You ready? The last one. Come on! All right, you try. You try score. Hey, rainbow, rainbow, rainbow. saaxiibayaal maadaama imika goolashaan ka wada dhaliyo inaan xabadun ka qabtaa Matusha's pens. Oh! He tried to give me the eye. He tried to give me the eye. It's not doing nothing here. Oh, that was a good pen. That was a good pen. Fair. Oh, yes. Well done, brother. Thanks, Well bro. done, brother. I won that 3-2. Brazil's not the country of football anymore. No, now it's the UK. Now it's England. saaxiibayaal haddaba saaxiibadaydaas igu gartay meesha waan soo macasalaameeyey Lucas ayaan iga soo dooray kadibna markan waxaan u dhaqaaqnay inaan soo kala eegno meelo kale inagoo markanna soo samayn doona qaar ka mid ah challenge-yada inoo yaala haddaba saaxiibayaal sababtaan u soo raacay baskan waayo ninkan Lucas lagu magacaabaa wuxuu u shaqeeyaa dawladda sidaa darteed waxaa haystaa kaadh free oo uu ku raaco baska hamoodina bas aan lacag ka bixiyey Rain. Oh my gosh. Inside. saaxiibayaal markaan cagta sidaa u soo dhigay meeshan roob ayaaba igu soo daatay sidaad aragtaan ma rumaysan kartaan saaxiibayaal marka saaxiibayaal waxaan joognaa beachka Copacabana iyadoo xataa roob gudaaya waxaan isku dayay inaan challenge-yadayda iska sameeyo qaar ka mid ah haddaba saaxiibayaal inkastoo cimilada igu xumaatay laakiin 2 cisho imika joogo South America waxaan ku guuleystay inaan 2 challenge dhammaystiro laakiin waqtigu waa hayaa challenge-yadana way igu yar yihiin sidaa darteed waxaan markan go'aansaday oon isticmaali doonaa tigidhkayga qaarad aan iskaga gudbayo waxaan rajeynayaa in weli challenge-gan aan ku dhammaystiri karo 30 cisho haddaba saaxiibayaal anigoo iska warwarsan haddana markan waxaan go'aansaday inaan quraac free soo helo saaxiibayaal iska warrama adduunka oo dhan ayaan kusoo wada wareegayaa weli waxaan isku dayaa inaanay wax lacag iga bixin idinkana waxaan idinka codsanayaa inaad hal quraac oo free siisaan haddaba markay yara wada hadleen ninkan ayaa ku qanciyey gabadhan meesha haysatay inay quraac free siiso Yes? Okay. Thank you, my brother. Thank you. This is my guy right here. Thank you, brother. saaxiibayaal marka sidaa arkaysaan waxaan quraacda ku cunayaa meesha aan ugu jecelahay ee magaalada Rio de Janeiro haddii aad Rio de Janeiro timaadaana meeshan soo booqda quraac free siiyeen hamburgerkayga markaan dhamaystay waxaan dib ugu noqday inaan Lucas la seexdo saaxiibayaal haddaba challenge-gan sidaan filayay ma aha challenge-gani ma fududa si aad u dhammaystirto aan wadaa saaxiib sidaan filayay kuma dhammayn kara 30 cisho ayaan u malaynayaa challenge-gan laakiin waan sii wadi doonaa haddaba saaxiibayaal wiigagii ugu dambeeyey waxaan niyadda ku hayay inaan wax sameeyo waa inaan koro bahalkan sidoo kalena aan ku badbaado sidaa darteed maadaama Afrikaan kusoo samayn waayey markan waxaan isku dayi doonaa aan meel kale ku sameeyo Rio de Janeiro dusheeda ayaan ku samayn doonaa sidaa darteed markan waa inaan laakiin free ku helaa You do hang gliding? Yeah. Can I give you my watch, which costs £300 for the flight? Oh, here's the watch. saaxiibayaal haddaba saacadan aan markan doonayo inaan bahalkan ku fuulaa waa saacad markii New Zealand aan joogay aan free ku helay kadib markii shirkadda soo saartaan wuxuu haysiiyey balse kadib markii ay diideen ninkan Lucas lagu magacaabo ayaa isku dayay inuu raggan la hadlo isagoo af Portuguese kula hadlay ugu dambeyn raggan way ka aqbaleen markii ay siyaadkayeen He hung up? Yeah. He said yes? Yes, accept. You are the man. There we go, you're the man. The watch has done it. Okay, no, you've done it, to be fair. I was not convincing him at all. saaxiibayaal Britol waxayna noqon doontaa maalin aad u cajiiba berrina waxaynu samayn doonaa experience-kii ama tijaabadii ugu fiicnaa ee Rio de Janeiro aan ku qaadano Oh my goodness me. Copacabana Beach. This is what it's meant to look like. intaa kadib haddaba waxaanu tagnay meeshii aan ka korinay bahalka Lucasna maadaama aan bahalkan korayay halkaas ayaan ku macasalaameeyey Thank you. I very much appreciate it. Thank you. Really appreciate that, my friend. And I think you have great English. Keep going. You're doing very well. Realmente aprecio tudo o que você fez. Você anfitrião incrível. Do fundo de meu coração, obrigado. Obrigado você pela companhia, pela... saaxiibayaal haddaba
si aan baalkan u korno wixii naga soo gaadho waa inaan anagu aqbalno oon qaadano sidaa darteed inaad naftaada adigu mas-uul ka tahay ayaad saxiixaysaa sidaa darteed waxaan soo raacay ninka meesha ay geenaya baalkay saari doonaa sidaa darteed waxaan kornay halka sare ee meesha laga soo boodayo waana sii naxsanaaba maadaama meelaha sarsaraan ka baqdo markiibana waxaan bilaabay in waxaan samayn karayo in kale inaan ka shakiyo laakiin anigoo fikraya ninkani isagaaba ii xidhay qalabkii wixii Oh my gosh, this is scary, man. Moment take off, just run. You big man, you sit moment take off, I bloop. Okay. Don't sit. That's Stand good to know. up. Yes, in the air. Yeah, but I'm not in the air. Run. Yes, yeah, I know how to run, yeah. Yeah, I know how to run. saaxiibayaal waxaan iminkaan samaynayaa wax aad u halisa weeye aad baan u cabsanayaa sidaa darteed meeshan haddii aan ku baxoon sidaa ku tago dadka commentiga waxaan ka codsanayaa inay qofkaan ahaa ay wax xasuustaan ugu dambeynna cabsidii iyadoo ay haysa sidaas ayaan ku duulnay I'm running. Go up your leg, push it back. Oh, look at me. You fly with the Oh, feel sick. Yes! Don't do it, George. Do not do it. No, this man's a sicko. Okay. I stand up. taa waan qalday soo maaha inaan qaldaban u malaynayaa taa saaxiibayaal bal u fiirsada lagu eegaysay noqdeen ciid baan dhex galay sidaana saaxiibayaal waxaynu ku dhammaystirnay challenge kale ninkii kaloriyana sidaa waxaan ku siiyey saacadda aan ka ballan qaaday ee lacagta aan ku bedelinayay sidoo kalena saaxiibayaal markii uu sii tegay waxaan kasii codsaday inuu iga caawin karo oo igeyn karo meesha Copacabana lagu magacaabo ama beachkii marka hore aynu joognay saaxiibayaal saacadda ay ninkaasina aad bay noo caawisay keliya kumaynu korin baalka aynu u baahnayn balse sidoo kale waxay dib inoogu soo celisay meesha aynu ka tagnay beachkii Copacabana oo ninkiiba gaadhigiisa nagu soo qaaday sidaana saaxiibayaal markan waxaynu ugu soconaa inaynu soo dhammaystirno challenge-geena ugu dambeeya kaasoo aynu ku furan karno tigidhka diyaaradda ee qaaradan iskaga gudbino haddii challenge-yada aynu wada dhammaystirno tigidhkan ayaanu furan doonaa haddaba saaxiibayaal markan aynu eegna inay inoo ogolaadaan dadkan meesha jooga inaynu la ciyaarno qoladaas English ku hadlaysaan malaynaya aynu u tagno saaxiibayaal ugu dambeyn way ogolaadeen laakiin waxaa filaya raggan inay rag khabiira yihiin oo baashan yaqaana aniguna waan ku cusubahay balse aan tijaabiyo dhib male laakiin baashan waan kasoo dhaalayba si fiican baan u waday waqti badanna igumay qaadanba inaan la qabsado saaxiibayaal haddaba markaan xoogay ciyaaranay baashii baraajo ay noqotay laakiin marka waxaan u baahnay inaan badiyo si aan u guuleysto sidaana saaxiibayaal waxaan ku dhammaystiray dhammaanba challenge-yadii layga baahnaa inaan sameeyo inta aan joogo South America waxaana sidaa ku furtay tigidhka aynu qaarad iskaga gudbaynay waqtiga aan raaci doono flight-kana wax yar ayaa iga dhinaa sidaa darteed waxaan go'aansaday inaan ku yara raaxaysto oon fadhiisto qorraxda sii dhacaysa saaxiibayaal mid ka mid a filimada aan ugu jecelahay waxa weeye filimka lagu magacaabo Rio magaalooyinka aan ugu jecelayna waa isla magaalada Rio farxad iyo weliba riyo ii rumowday weeye inaan halkan joogo waxaynu ku sugnay qaaradda labaad ee ugu dambaysa iminkana aynu ku raaxaysanno viewga Copacabana kadibna flightkiina ayaan raaci doonaa waxaynu isku daynaa inaan caawa raacno saaxiibayaal meeshan aad bay u qurux badnayd balse waxay ahayd in halka ka raadsado qof airportkayga kaxeeya waqti badanna igama hadhin flightkiga sidaa darteed inaan raadsado weeye qof aan raaco flightkan aan raaci doono waa flightka keliya habeenka ka baxayay North America maadaama 27 cisho ugu dambeeyayna adduunka aan kusoo safriyey mar rabo inaan iska khasaariyo jaaniskan oo inta ugu dambaysan isaga ciyaaro saaxiibayaal qoraalkan Portugiiska lagu qoray ayaan sitaa on meel walba la istaagi doonaa waxaan isku dayaa marka inaan hodheelada tago maadaama wadadii laga qaadi waayey hodheelada waxaan filayaa in dad badan ay ka tagaan airportka tagaan sidaa darteed qof isii qaadama waayo saaxiibayaal marka waxaynu hadhay 3 cisho kaliyan haysanaa waxayna rabnaa in qaaradda North America aynu tagno sidaan aynu ku dhammaystirno challenge-geeni 30 cisho ee adduunka oo dhan aan lacag la'aanta kusoo wareeginay anigoona rabo markayna North America tago kadibna aan England ku noqdo 3 cisho gudahood saaxiibayaal marba marka ka dambaysa fikraduna iga sii dhamaanayay waqtiguna igu soo yaraanayay kadibna waxaan go'aansaday inaan qof kasto Brazil kula kulmaan la hadlo Lucas ima soo jawaabiyay saaxiibayaal markan flight-ka saaxiibayaal mar rabna inuu naga tago saaxiibayaal markan waxaan soo marnay hodheelada beachka u dhow oo dhan iyo wadooyinka laakiin hal hodheel baa markan noo harsan kaasoo aynu weli tegin waana hodheelkan Hilton saaxiibayaal waxaan soo xasuustayba ninkan wadada markii ka soo qaadnay oo ii sheegay haddii aad wax si aad u rabto wad helaysaa adduunka ayaana ku rumayn doona riyada saaxiib qoladan wax weydiiyay aad bay ugu qosleenba saaxiibayaal qoladii nagu soo qosashay odaygii baaba inagu soo noqday Uberka ayayna naga bixin doonaan aan ku tegayno haddii tan run noqoto ma rumaysan karo saaxiibayaal waxaan islahaa wax walba aad soo qabatay way dhamaatay way fail garoobayaan laakiin qoladan baa markii ugu dambeysayna badbaadisay saaxiibayaal ma rumaysan kartaan in safarkan aynu ku soo qabano 30 cisho haddii aan ku guuleysto ma rumaysan kartaan saan u farxayo
saaxiib yaal weli waxaan ka sheegsanahay ninkii Rome lagu magacaabayay inuu qof caadi ah ayeen kale oo ninkani taladii uu siiyay waxay noqotay talo runa haddii aad wax aad u rabto dadka adduunka ayaa kugu qaban karaa laakiin hadalladiisaas aad ay ii saameeyeen saaxiib yaal daqiiqado yar ayaa ka harsanaa inta flightkan kacay sida darteed inaan u cararay noqotay dhinaca airportka. Can I check in, please? Oh, we've done it. How far were we to miss the flight? 2 minutes, 3 minutes. 3 minutes. saaxiib yaal sida aragtaan 3 daqiiqo oo kaliya hadaynu soo habsaami lahayn flightku inaga tagi lahaa markan labaadna waynu badbaadnay sidaa darteedna waxaanu kusoo gabagabaynay South America oo in flightki ugu dambeeyay imka ka raacnay haddaba saaxiib yaal halkan hadii aad soo gaadheen muuqaalka daawateen waxaan idin codsanahay inaad subscribe to noo saartaan sidoo kale muuqaalkan aad like saartaan waa inoo iyo muuqaalka xiga aad badbaadsantiin